qoys tan yar oo ku dhaqan magaalo ganacsiyeedka degmada Togo Jaale ayaa cabasho ka muujiyay gudoomiye ku-xigeenka degmada Togo Jaale Mursal Nuux Ismaan waxaana ay sheegeen in gudoomiye ku-xigeenku ka dumiyay guriga ay ku noolaayeen iyadoo lagu guda jiro xilli dhaxana ayaa waxa ay qoyskani wadnaayeen banaanka iyadoo labadii habeen la soo dhaafayna ay u hoydeen banaanka gurigooda laga dumiyay hooyada caruurtan dan yarta ayaa sheegtay in xabsiga loo taxaabay kadib markii ay u cabatay maamulka dawladda hoose dhinaca kale haweenka la jaara qoyskan ayaa iyagu ka hadlay waxaana ay baaq dheer u direen madaxweynaha Soomaaliland iyo wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland waa kuwan iyagoo arrimahaasi arrimo kale ka hadlaya barakaatu madaxweynaha sharafta leh dawladda sharafta leh waxaan ka codsanayaa Mursal baana dhibay jaarkii baana iyo ku-xigeenka gudoomiyaha waanu salaaminaa dawladda hoose waa salaaminaa Mursal baana dhibay ubadkaas u barabixiyay shan habeen halka waran baaha loogu dhisay gurigooda waad arkaysiin sidaas uu galay jeegad walba gobol buu ka dhigay dawladda waxaan ka codsanayaa wuu ogolaaday ubadkaan guriga ugu geynay waxba se kama ahay Mursal baa haysta ku cadilnaa shan ciyaal ku haystay shan habeen ku jiray ساو خلا لا ولك اللي جتشبيه وليس بهاي وليس بشر سبهاي وليس بهاي سؤال كاركيد جسد أصلي marka jaarkan walaal wala soo baahayay anaga soo baahaynay haddana soo baahaynay markii dambe waxa la yiri meeshii gudoomiye ku-xigeenkii baa yimid wuxuu yiri meeshii baabiya wala la baabiyay jaarin baa loo soo diray waa ku ciyaalkii way barakaceen dhaxanta ayay fadhiyaan barafka ay habeenku hoyda banaankaas hoydaan tay waxa la codsanaynaa in waxan ku wixii awlaadii loo soo gargaaro loo yimaado walaal waxaan nahay dadkii qoyska ay reedan yartaa u soo baahayay oo u soo ururiyay markaan u soo ururinay walaal la isiri dhaxanta uga buula wax yarna wixii yaraana walaal waa laga baabiyay dawladda ana ka baabisay waxaan ku codsanaynaa madaxweynaha sharafta leh walaal inuu dadka hoos u eegaan oo dawladda iyo maamulka u soo sheegaan oo ula hadnaan oo halkaas soo gabadhisiisay oo walaal ay tiriha deganaadaan laga baabiyay oo laga qaaday walaalo aad arkaysa sida looga baabiyay wixii yaraa loo soo buulayna ay istaayihiin aayad dambana aan lahayn dub dambana aan u noqonaynin wax looga dhiso oo jiingadiba ay walaal saa u go'go'day markeega horena ay walaal jiingad baahayd marka waxaan ku codsanaynaa madaxweynaha sharafta leh inuu hoos soo eego waxa weeyii madaxweyne meesha dadka yara dayacareed arkayso ana ilaahay dartii u soo dajiyay ana meeshaydii tahay waxaan idhi iskaga meel gaadha baabeegaygay baa ku yaraaday laba maqsin iyo barjiingadaan miyii looga soo raray dumarka jaarasha u soo ururiyay waxaan maalinta idiin gaadho waad iskaga guuraysiin imika maadaama gurigeedii ku yaraaday boqsii dhista maqsin iyo barka jiingadaasi dhistaan idhi wuxuu leeyahay naagtani male wasaaradda waxbarashada ku haysata ubadkii yareeb loo soo baahayay hatigaad uu gaarsiiyay aniga xataa hatigaad uu gaarsiiyay marka madaxweynaha sharafta leh waxaan ka codsanayaa ninkaasi degdeg in la iga soo gaaro dadka yara masaakiinta u dayacay ee ilaahay dartii ugu sii meel gaar meesha ugu siinay dawladdu inay wax ka qabato ayaan ka codsanayaa sharafta leh dawladda sharafta leh qoyskaas oo shan caruur ah Itoobiya ka yimid oo inaan taasi sheeshiisay inta yar noqonay dawladda ka baabisay dar Allah ugu soo baahay xilli haystaana ma jirto madaxweynaha sharafta waxaan ka codsanay qoyska hoos leego weeg bay dhaxanta yaalaya bay hoofka ay saaq buulka yar noqon ku jira wuxuu saa looga baabiyay marka la soo gaaro ilaahay laga cabsadaan leen Khadar Cabdillaahi telefishinka caalamiga ee Sub News TV magaalo ganacsiyeedka degmada Togo Jaale